وقدام بين الله وحوليه هي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. dadka ilaahay ka cabsaday ee wanaagsan waxay leeyihiin jannooyin iyo wabiyaal bay leeyihiin. sidoo kale boos ay fadhiistaan oo jannooyinka ka mid ah ay leeyihiin oo dhab ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ah. alla sheega imaamkii weynaa ibnu taymiya ilaahay ha u naxariiste in isagoo halkaa maraya naftu ay ka baxday oo bishaaro weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bishaaraynayo intii wanaagsanaatay inay abaal wanaagsan heli doonaan, inay agtiisa ku guulaysan doonaan. yaa salaam, maxaa ka qurux badan, maxaa ka qaayo badan, maxaa ka quud ruuxeed wanaagsan in ilaahay agtiisa waxa weeyaan aad ku guulaysato, boos ilaahay agtiisa aad ku guulaysato. dhammaadka bisha barakaysan oo maalinkii inagu dambaysay ah ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii soddonka cashaba camaladooda la aqbalay inuu inaga yeelo. sidaa kuwii wanaagsanaaday loo leeyahay waxay leeyihiin guntiga gabagabada boos wanaagsan bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin. innagana guntiga gabagabada bisha ilaahay waxaan ka baryayaa inuu isla kuwaas aw inaga dhigo loogu soo gabagabeeyey ajar iyo abaal iyo aqbalaad camalkoodii la aqbalay. wanaagsana waa ilaahay. is arag dambe. salaamu calaykum.